dalka waxa uu gelayaa xilli doorasho ah ma waxa qabtaa in fursad la siiyo hoggaanka hadda talada hayo mise waxaas leedahay dalku wuxuu u baahan yahay isbedel Soomaaliya markay gaarto 4 sano dhamaysato waxay u baahan tahay madaxda hadda joogta doorasho galay inay doorasho galaan ama shacbiga Soomaalidu soo doorto iyo baarlamaankooda waa soo celiyo ama sidii saaxiibadii hore haday doorashada ku guuleysan waayaan dabcan in xilka wareejiyaan nin way aragaa tahay dalkana waa joogtaa waad ka wareysaa xaaladda sida ay Soomaaliya maanta siyaasad ahaan iyo amni ahaan tahay maxaa kaaga muuqdo waxa iga muuqdo Soomaaliya isbedel bay u baahan tahay isbedel bay u baahan tahay isbedel siyaasadeed isbedel amni isbedel muxuu ahaa dhinac walba ayay u baahan tahay Soomaaliya amni darra ka jirto dadku walaac xoog leh qabaan magaaladu way kala xiran tahay meelo qaar weeraraha ka dhaco kii ugu dambeeyay ceel saliin ahayo ciidan badan oo Soomaaliya lagu dilay hub iyo gaadiid lagu furtay marka eegtay ammaanka Soomaaliya xagee ayay dhibaatada ka jirtaa waxay ka jirtaa amni darradu waxa jira sidii amni lagu suri jiray waxa lagu sugi lahaa ama dal amnigiis lagu sugi lahaa dalka kan hadda ku shaqeyn maayo kuma socdo dariiqii dalku nabad ku noqon lahaa laguma socdo hadda maxaa diiday waxaa diidan yani matalan waxaad arkaysaa ciidamadii loo qoray dalka Soomaaliya inay difaacaan ayaa waxaa la geeyay degmooyin kale sida gobolka Gadoo kale waxaan qabaa baahida halkaas ciidamada jiray amni baa jiray waa deganayd qaraxyo kama maqalno ayagoo isdilaya ma maqalno ayagoo diriraya la kala celin mayn ciidamada loo daadgureeyay halkaanna magaalada hareeraheedii baa la mari waayay oo waxaa kala xiran Jowhar iyo Balcad iyo Muqdisho iyo Afgooy iyo Xamar ayaa la socon laayay marka waxaad arkaysaa yani habkii dawliga ahaa qaranka amniga ciidanka loogu shaqeyn lahaa ayaa waxaad moodaa inaan jidkeedii lahayn 4 sano oo bila ka harsan baa waxa taa sanatar ka tirsan golaha aqalka sare ka horna Soomaaliya siyaasadeeda waad ku jirtay 3 sano bas ka dhex kadib markaa sanatar noqonay Soomaaliya meeshii ay joogtay maanta ma hore u kacba kaaga muuqda mise dib u dhac waxa weey Soomaaliya meelna hore uga kacday waxyaabo badan baa hore loo qaaday waxa kamid ah arrimaha waxaan oran karayaa muxuu ah matalan arrimaha maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka iyo sida hadda lagu gaaray in dalka laga cafiyo deyninkii ahaa waxaan oran karayaa waa progressive weyn bay sameeyeen dadka hawshan wada maamulka muxuu ahaa xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu ka madax yahay iyo dabcan wax badan oo wanaaga ayaa sameeyeen maaha wax la inkiri karayo waa wax la taaban karayo dabcan meelo markaa fiirisidna sida amniga oo kale gadaal buu aaday tilaabooyin buu gadaal u qaaday waa aragtidayda aniga madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Cali Mahdi maalmaha dhan xamar kulamay ka wadeen way hadlayeen beelaha shiray beelahuna uguma horeeyaan kuwa hadda shiriyay muduloodo dhowr jeer beela kala shiray ayooda ka tashaday shirarkii beelaha waa soo laabtay tabashadu way soo laabatay saaxiibada horumarka ka hadal raacdo khudbadii ay jeediyeen iyo way aragnimadaada xagee u socdaa dalka waxaa muuqda marka waad arkaysaa adiguba waxaa muuqda tabashaa jirta waxa hadda anigu aan ka hadlayo adigu aad weydiinaysid tabashaa jirta waxaa jirta mid amni oo dadkii amni bay waayeen waxaa jirtay tabasho siyaasadeed oo ay dadka qaar ay u leeyahay siyaasaddu meeshii qaabkii isbedelka iyo taladu ahayd laguma socdo tabashadeed baa jirta dadka hadlana qof waliba wuxuu ka hadlay aragtidiisa oo ah uu maanta islahaa dhibaatada jirta amaad ku saxdaa saasaan anigu u arkaya inay wax jira saxayaan oo sixitaan qofba si ha u yiraahdo qofba si ha aragtida ha uga bixiyo
laakiin waxaan u arkaya kulli arrin ku jeeda masaalix iyo dalku inuu nabad helo, isbeddel siyaasadeed helo, isbeddel doorasho helo, sidaa wey sidaan u arkaya.